marxaba khaalid ayaan ahay. waxaan jiraa 22 sano. waxaa la noolahay hooyaday iyo walaashay oo 9 sano jir ah. nolosheena maadiga ah aad ayay u liidataa. waxaan bartaa kuliyadda caafimaadka waana shaqeeyaa. aabahaygana 4 sano ka hor ayuu dhintay. waxaan ku dadaalaa si aan u heli lahaa wax walba ay u baahan yihiin hooyaday iyo walaashaydaba. nolosheeda si caadi ah ayay u socotay ilaa aan jaamacadda kula kulmay saaxiibkayga Caadil. wuxuu isku dayay inuu iga soo agdhawaado markii hore. waan la yaabi jiray laakiin waa la qabsaday. dadka dhan aad ayay u jeclaayeen wayna ixtiraami jireen. laakiin bilooyin marka ay ka soo wareegatay waxa uu bilaabay jaamacadda isbuucii 2 maalin inuu ka yimaado. sidoo kale waxa uu ila imaaday dabeecado kale. maalin ayuu ii imaaday wuxuuna igu dhahay, khaalid arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo. si la yaab leh ayaan u fiiriyey waxaana ku dhahay haye. wuxuu igu dhahay goormee ayay shaqada kuu soo dhammaanaysaa? caawa 3 saac ayaan ku dhahay. haye caawa 3 saac ayaan kuu imaanayaa. haye ayaan ku dhahay. waqtigii ayaa la gaaray. wuu ii yimid. gaarigiisa ayaan koray. waxaan isweydiiyey arrinka muhiimka ah waxa uu yahay. asna waxba iima sheegin. gaariga nuso sax ayuu socday. meel mugdi ah ayaan gaarnay. gaariga ayaan kasoo degnay. wuxuu igu dhahay noloshaada in ay liidato waan la socdaa. sidoo kale lacagta aad shaqada ka qaadatana in aysan kugu filnaynin waan ogahay. si la yaab leh ayaan u fiiriyey. hadalkiisa ayuu sii watay wuxuuna dhahay, sidee ayaad u aragtaa haddaad iila shaqayso? ma adaa kula shaqaynaya ayaan ku dhahay. haa, ani keligayga ma ahan, tiim ayaan nahay. lacag aad u far badan ayaad qaadanaysaa. maalin walbana gaariyo cusub, guri aad u weyn iyo dhar cusub ayaad iibsanaysaa. inta aan u dhoola cadeeya ayaan ku dhahay, maxay tahay shaqadan oo lacagahaas aadka u far badan laga helaayo? wuxuu igu dhahay, waa shaqo aad u fudud, aan waqti sidaas usii badan kaa qaadanaynin. inkastoo aad barato caafimaadka waxaad qalin ku samaynaysaa carruurta yaryar. si la yaab leh ayaan u fiiriyey. waxaan ku dhahay, maxaa waaye? wuxuu igu dhahay, isbuucii $5,000 ayaad qaadanaysaa. qaliina noocee ah ayaad ka hadlaysaa adi? qaliina aad u fudud, waxaad soo bixinaysaa xubnaha carruurta. waxaan ku qayliyey, maxaa dhahday? ka ganacsiga xubnaha. inta uu afkayga qabtay ayuu igu dhahay, ha qaylinin. hadalkiisa ayuu sii watay, ma ahan ka ganacsiga xubnaha ee hal keli ayaan cunugka bixinaynaa si aan cunug kale u siino. waa arrin wanaagsan. waxaan ku dhahay, mayla kaftamaysaa adi? wuxuu igu dhahay, ma kaftamaayo ee anaga ayaad nala shaqaynaysaa. waxaan ku dhahay, arrintaas ma samayn karo. inta uu igu qoslay ayuu igu dhahay, waad ku khasban tahay, haddii kale qoyskayga ayaan dhibaataynaynaa. waxaan ku dhahay, qof aad u xun ayaa tahay. wuxuu igu dhahay, waqti aad ku fakarta ayaan ku siinayaa. go'aankaaga kugu dambeeya ayaan berita kaa rabaa. wuu iga tagay, xitaa ima uusan wadin. waan iska soo luweeyey weliba anoo arrinta ka fikiraayo, ma booliska ayaan u sheegaa? haddana waxaan ka cabsanayaa inuu hooyaday iyo walaashay dhibaateeyo. ma ogi waxaan samaynayo, ma ogi. guriga ayaan gaaray. anoon dadna salaamin ayaan qolkayga galay. kursiga ayaan ku fadhiistay. anoo fikirayay ayaa hooyo qolka igu soo gashay. waxayna igu dhahday, maxaa kugu dhacay? waxna ayaan ku dhahay. waxay igu dhahday, wax cun ayaa jira, kuma qasbaaya hadda, laakiin waxaan sugayaa goorta aad ii imaanayso, aad ii sheegayso. haye ayaan ku dhahay. qolka ayay ka baxday, annana waan seexday. waxaan ku soo kacay codka walaasheeda yar ayadoo ii dhahaysa, khaalid soo kac, iskuulka waan ka daahay. intaan u dhoola cadeeyay ayaan ku dhahay, waan soo kacay yariistayda. inta ay xanaaqday ayay dhahday, yariis ma ihi. waxaan ku dhahay, boqoradeyda ayaa tahay. way dhowla cadaysay waxayna dhahday, haye dharka iska bedel soona bax. qolka ayay ka soo baxday, anna waan ka soo dababaxay. waxaan arkay hooyo oo meesha fadhida. dhabanada ayaan ka dhunkaday. waxaana ku dhahay, subax wanaagsan hooyo. sidoo kale subax wanaagsan ayay i dhahday. quraacda ayaan la cunay, kadibna walaasheeda yar ayaan iskuulka geeyey. anna waxaan aaday jaamacadeyda aanan jeclayn inaan aado. daqiiqada kadib jaamacadda ayaan gaaray. caadil ma arkin. aad ayaan u farxay. xisadayda ayaan galay weliba anoo arrintii ka fikiraya. xisada ayaan soo dhammaystay. kadib bareeg ayaan soo aaday. waxaan arkay caadil oo gacanta ii haatiyey. see tahay ayaan ku dhahay. si jees ah ayuu iigu dhahay, kheer. waxaan ku dhahay, caawa 3 saac ayaan kuu imaanayaa. haye ayuu igu dhahay. marka la gaaray 3 saac banaanka ayuu iigu sugayey weliba asoo la socda wiil 20 sano jir ah. marka uu ii arkay ayuu igu dhahay, wiilkan waa xasan. madax ayaan u luxay, mana la hadlin. gaarigii ayaan kornay waxaana aadnay meeshii marka aan gaarnay ayaa caadil igu dhahay, haye maxaad go'aansatay? waxaan ku dhahay, arrintaas ma samaynayo. inta uu igu qoslay ayuu gaariga agtiisa aaday. marka uu furay waxaan arkay walaasheeda yar oo ku dhex jirta. marka aan rabay inaan ka ag dhowaado ayaa xasan gacmaha iga qabtay. caadilna wuxuu igu dhahay, maxaad go'aansatay? waan ka aamusay. anoo kalabalabaynaya ayaan ku dhahay, haye. wuxuu igu dhahay, manala jirtaa? horta walaasheeda ka leexo ayaan ku dhahay. wuxuu igu dhahay, horta manala jirtaa? haa, ee walaasheeda ka fogaada ayaan ku dhahay. inta uu qoslay ayuu
dhahay, haye berito waad imaanaysaa, waxaadna samaynaysaa qaliinka kugu horeeya, waxaadna ku samaynaysaa gabar yar oo 10 sano jir ah. hadalkiisa ayuu sii watay, wuxuuna dhahay, haddaad isku dayda inaad booliska gaarsiiso ama aad arrin kale ku dhawaaqdo waad ka shalaayi doontaa waxa kugu dhaca. haye ayaan ku dhahay, asiga iyo saaxiibkiis waa ay baxeen, anigana walaasheeda ayaan soo waday, asna wuu iga tagay sida caadadiisa ahayd. wax yar ayaan sugay, kadibna gaari kara ah ayaan helay, waan soo raacnay, waxaana ka fikiray sida aan arrintaas ku waafaqay. walaasheeda ayuu iigu hanjabay, waan sii fikiray laakiin xal waan gaari waayey. gurigi ayaan gaarnay, hooye ayaa walaasheeda u murugootay, waxaan ku dhahay aniga ayaa waday, wayna soo huruday. haye ayay igu dhahday, waxayna la seexatay Nuura, anna waan awoodi waayey inaan seexdo, waxaana ka fikiraya sida aan arrinta berito u sameeyi doono. sida aan u murugsanaa waan ilmeeyey waana iska seexday. Nuura codkeeda ayaan ku soo kacay, waxayna igu dhahday, shalay maxaa dhacay? nin ayaa ii imaaday, wuxuuna igu dhahay walaalkaaga saaxiibkiisa ayaan ahay. markuu ila hadlay kadibna wax waan dareemi waayey. waxaan ku dhahay, Nuura qof aadan aqoon ha u istaagin. waxay igu dhahday, haye maxaa dhacay? anoo ku qaylinaya ayaan ku dhahay, hadalka aan kuu sheegayo maqal, waxna ha igu soo celinin. haye ayay iga dhahday, wayna iga tagtay. waan ogaay inay iga xumaatay, laakiin ayadaa u baqaaya. dharkayga ayaan iska soo bedelay, waxaana arkay Nuura oo murugaysan. waxaan ku dhahay, Nuura inaan kula hadla ayaan rabaa. qolkayga ayaan galnay, waxaana ku dhahay, Nuura boqordeeda ayaa tahay, waxaana xaq aan u leeyahay inaan ku cabsado, waayo shalay saaxiibkayga ayaa kula hadlay. waxaana kaa codsanaa hooy inaadan waxba u sheegin. digtoorka waxa uu dhahay, difaaca jirkaaga wuu liitaa, waa inaad si fiican wax u cuntaa, inaan ku waayo ma rabo. haye hayga xumaanin, way iga soo agdhowaatay, hab ayay isiisay, waxayna dhahday kaama xumaanayo. haye waxaa kaloo ku dhahay, maanta ma baxaysid? anaa hooye u sheegayo, laakiin wixii shalay dhacay ha sheegin. hooye ayaan u sheegay fasax inay u qaado Nuura. haye ayay igu dhahday. banaanka ayaan u soo baxay, waxaan arkay gaariga Caadil, anoon la hadlin ayaan gaariga fuulay. wuxuu igu dhahay, diyaar ma tahay? inta aan ka jeestay ayaan shib ka dhahay, waxaan aadnay meel cidlo ah oo laga guuray. waxaa bilaaban doontaa nolol la yaab leh oo aad u xanuun badan. talow maxaa dhici doona? la soco qaybta labaad ee sheekadeena. haddii aad janalka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like, share iyo subscribe inaad noo dhahdo.